wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Karxagle Toosiye ayaa saaka waxa uu booqday isbitaalka Daryeel ee ku yaala magaalada Buuhoodle haatan lagu daaweynayo bukaanada uu soo ritay cudurka shuban biyoodku waxaana wasiirku ku soo dhaweeyay bahda caafimaadka iyo shaqaalaha isbitaalkaasi waxayna sheegeen in cudurka shuban biyoodku Buuhoodle uu hoos dhac balaaran ku yimi waana kan Dr. kamid dhaqaatiirta soo ka howlgala isbitaalkaas oo wasiirka uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee bukaanada haatan ku jira isbitaalka xaaladdu aad bay boqolkiiba boqol si hore uga soo wanaagsantahay marka hore beeshinada cusbaalka yaalay saddex boqol ilaa afar boqol bay hayeen dadka kale waxa yaalay 140 shalayna waxa yaalay 115 maantana beeshinadu intii hore aad bay uga yaryihiin xaaladdu boqolkiiba boqol aad bay u soo caafimaadsan wanaagsan xagga beeshinada iyo xagga bishinka labadaba isbedel fiican baan haynaa waayo mar walba qoladeedaasi aad baan iska warhaynaa isbitaalku wuxuu ka kooban yahay hadda 5 ward iyo emergency-ga 5 ward ba 5 dhakhtar baa kala qoran wixii response ee ka imaada ama isbedel ka imaadana yani qof walba meeting buu ka sheegaa waxa ku soo kordhay wax kale wixii admission ay soo gelitaan ay wixii bixitaan kulli waan ka warhaya wana jooga qaybta emergency-ga xanuunkii dhibka badnaa dadka badan u dhinteen shuban biyoodka ahaa isna aad iyo aad hoos ugu dhigay ilaahay baa mahadale dadaal weyn oo aan galay kadib ayaa maanta waxaynu maraynaa deeshinada yaallaa inay 70 ka yar yihiin waan soo maray waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka guddida caafimaadka Buuhoodle oo iyaguna dadaal xad dhaaf sameeyay dawladda deegaanka Itoobiya ayaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa oo dadaal weyn ka geysatay si weyn noo garab gashay gurmad weyn noo soo samaysay oo aan la iloobi doonin gurmadkaasi ma aha mid aan iloobi doono hadaan nahay Jamhuuriyadda Somaliland iyo gaar ahaan hadaan nahay deegaanka Buuhoodle tiimamka jooga iyo shaqaalaha imika halkan jooga way sii joogi doonaan ilaa iyo aanu weyno wax kaysasa way sii joogi doonaan marka hawshaasi dhamaatana biladaanu guddoonsiin doonaa intii ka qayb qaadatay hawshaas aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa dhaqaatiirta waxaa jira meelo badan buu xanuun ka dilaacay imika meesha ugu dambeysay ka dilaacay waa magaalada Woodward imika gurmad weyn baanu ka galnay dhowr casho ka hor waxaan diray daawooyin aad u fara badan iyo team la socdo caafimaad maantana waxa gaaray dawo kale iyo 5 dhakhtar oo Hargeysa ka yimid iyadana waxaan insha Allah ku dadaali doonaa inaanu xakameeyno xanuunka iyagana waxa kale oo reeb Buuhoodle iyo dadka deegaanka ugu bishaareynaya dhakhtarku waa saa u furmay kale wasiirka ayaan waxaan weydiinay su'aal ku saabsan sababta uu gudiday inuu isbitaalka booqdo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cabay halka uu ogolaaday madaxweynaha Khaatumo Professor Cali Khaliif Galeer inuu booqdo isbitaalka waxaanu su'aasha ku jawaabay waxa madaxweyne ku-xigeenka Puntland gurmadka kama qayb qaadan markii dhibaatadu jirtay dadka reer Buuhoodle u diiday inuu yimaado booqdo isbitaalka wada go'doon shalay ma weydiiyo ma yiraahdeen saasa keentay inaanu iman waxaana wanaagsanayd inaanu iman halkan haduu iman waayo markii dib ku jiray wadamayntiina shalay ay ahayd markii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Kaar si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle oo ay soo dhaweynta shalayto tiigu bilaaneed ee abad loogu sameeyay وعلى عثمان سعود دكتور ورقة الفيش كعلمي اسماعيل نيوز مقالة بوه والله